waxyaabaha qofka dadka xanta uu la kulmo waxaa ka mid a qabriga ayaa lagu cadaabaa nabiga ayaa soo maray sal ly slam kama fi xadiid ibn cabaas wagayri ayaa nabigu wuxuu soo maray biqabrayn faqaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fi kabiir labadani qabriga hadda ku jira waa lagu cadaabaya laakiin markii la eego loo fiiriyo aragtidooda markay adduunyada joogeen wixii dembigan lagu cadaabaya wax weyn oo mayna arkaynin markaasuu nabigu fasiray ama axaduhuma fakana laa yastabriu min bawli ama alaakhar fakana muxuu nabi sal ly slam wa ama alaakhar fakana yamshi binamiima dadka ayuu isku diri jiray idan ku bishaarayso bishaaro miya way dhici kartaa qur-aanka fabashirhum bicadaabin aliim ilahi baa yidhi gaala isagoo iyagu bishaara laga cabiray marka hadduu qof ku farxayo maanta qof walba uu xamanayo ogow markaad wax xamanayso qabrigaaga xusuuso xadiidkan kale oo xanuunka badan ila eega nabiga markii la dheelmiyey habeenkii lamaa curija bi marartu biqowmin lahum adfaaru min nuxaasin yakhmushuuna wujuuhahum wasuduurahum faqultu man haulaai ya jibriil qaala haulaai aladiina yaakuluuna laxuuma annaasi wayaqacuuna fii acraadihim habeenkii nabiga la dheelmiyey sala allahu alay wasalam ayaa wuxuu yidhi waxaan sii maray dad cidiyo dhaadheer leh oo wejiyadooda halkaa kaga soo bilaabaya ilaa laabahooda saa isu dilaacinaya waan la yaabay ficilka foosha xun waxaa idhi bu yidhi waa kuwama nabigu wuxuu yidhi jibriil wuxuu yidhi waa kuwa dadka hilibkooda cuna ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam waxaan ku soo aruurinaya ayuha axiba sideen oga takhallusi karnaa ama aan oola dagaalami karnaa cudurkan khatarta ee dilaaga ee jeermiska ee bakteriyada jirkeenna ku faafay ee ummadda kala dilay ee reerihii isqabay dumiyey ee qabaa'ilkii isku diray taqwa allah horta inaan ilaahay ka cabsano subxaana wa tacaala aan ka xishoonno rabbigiina abuuray subxaanahu jala wacala waa kow labo inaan dhegaysanno aayaadka kuwaan hadda akhriyaynay iyo axaadiidta waciidka ah ee ku soo arooray war halkaa libaax baa dad ku cunay haddii lagu yidhaahdo waddada ma maraysaa mise libaax aad looma garanayo waa la iloobay waddadan xoog haddaad u marto kamera ku rakiban hadda haddii ingiriiska wadeen ma xoog baad ugu wadaysaa mise tartiib maxaa tartiiba ugu wadaysaa sawmaada cabsanin maxaad u malaynaysaa cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala lidalika alla wuxuu yidhi am yaxsabuuna ana laa nasmacu sirahum wanajwaahum bala warusuluna ladayhim yaktubuun buu alla yidhi subxaanahu jala wacala waa adilada tilmaamaysa istaxyuu min allahi xaqa alxayaa nabigaa yidhi war xishoodka ilaahay uu xaqa u leeyahay ka xishooda markaase waxay dhi yaa rasuul allah inaa nastaxyi walilahi alxamd waanu xishoonnaa markaasuu yidhi arrinkaa ma sheegaye walaakin man istaxyaa min allahi xaqa alxayaa falyaxfad ira'sa wamaa xawa madaxa iyo waxa ku hareeraysan ha ilaaliyo waa labadii dhegood muusiga shayaaiinta aad ku dhegaysanayso iyo xanta indhaha iyo carabka saddexda ayaa ku yaala maalan walyaxfad ilbatna wamaa waca weelka caloosha iyo waxa ku hareeraysan waa caloosha xaaraamta ka ilaali farjigana zinada ka ilaali sida oo kale khasaarada uu qofku la kulmayo waa inuu xusuusto atadruuna man ilmuflis ma garanaysaan qofka caydha madow ah een waxba haysanin waxay dhaheen waa qofkaan lacag iyo haysanin wuxuu nabigu yidhi sal slam maya waa qof imaan doona maalinta qiyaama muxuu wataa bisalaatin wa zakaatin wa siyaamin waqad shatama hada وضرب هذا وأكل مال هذا فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فريت هذا حتى حسنات كده ما هذا ما حدا عيا أيجب أنت الدنبية ذي اللي قصوا قاضه أيا ضش أنت اللي قصها ربا ملائكة لها وجي أنت تجي دان نار تقطورة وزع مركز صلاة هذا أدو خيب الصلاة هذه قيب الصوم كاغي قيب صدقه هذه قيب القران كذا اغريسي قيب السنن كاغي قيب مساجد كذا وسو سعوتي اجر كاد كاشي بر والدين اجر كاد كاشي وحاد قيب سادد ابد نعبتهي او جنة كو غليا حنت هذه جنة كو غليان كو بشاريستا قبلو حنت هذه جنة كو غليان دد ادو نعبت اما الصلاه هذه ood qaybisay markay kaadha maataba naar lagu gelinaya nacuudu billah maca ana ahla sunna waljamaca ay ictiqaadsan yihiin
qofku hadduu ahlu tawxiid yahay inuusan naarta ku waaraynin laakiin anaga ma naarta kuma waaraya baad yaad macno ka dhiganaysaa laa ilaaha ila allah aan arrinta aad iskaga ilaalino xasan baa wuxuu arkay ana alxasan qiila lahu ana fulanan ikhtaabak nin baa ku xantay baa la yidhi marka waxaan rabnaa balada hal qof oo inaga naga mid aho dhaqan geliya bal arrintaan rag dhaqan geliya baan ogahay anugu bal qisadan cajiibka ah nin baa ku xantay baa la yidhi yarxamka markaasuu wuxuu u diray nin buu u diray wuxuu u diray timir طبق dhan oo timir ah dambiil dhan oo timira buu ninkii xantay u diray wuxuu yidhi balaganii annaka waxay soo gaadhay adigu inaad xasanaadkaagii qayb iiga hadiyeysay hadiyaan inagu ubax baan isu hadiyeynaa waxaan isu hadiyeynaa barfuunan hadiye iskugu dirnaa laakiin ogow marka aad qof xamanayso hadiyaad u dirtay ogow wuxuu yidhi waxay soo gaadhay inaad hadiyad haali ah ii soo dirtay waa midaan doonayna hadda bal darsigan haddaana wax kale ka faa'iidaysanin bal markii qof baa ku xantay lagu yidhaahdo intaad suuqa tagtood barfuun caraf badan soo gado inaad dhahdo khayr allaha ku siiyo ajirkaagii baad qayb iga siisay wax aanan shaqaysanin baad iigu tatawucday walaalkayga runta anta wallaahi walaalkayga runta waa adiga lianna walaalkay ajirkiisa waxba igama siiyo dhaxalkayguu sugaa ama adi soo ma aha waxaad i siisay maxay ajirkaagii baad qayb iga siisay muxuu sameeyey marka waxaan go'aansaday buu yidhi inaan aan fakaafiuhu maxay ahayd inaan ku abaalgudo waxaan kugu keen alaabtan inaan abaal ku siiyo ee ii cudurdaar ajirkaad i siisay haddii aan kuu keeni waayey wax u qalma haye dhalinyaro maxaad ka dhadeen arrintaas iyada saasay dadkii qiimaha badnaa ee salafka ay ahaayeen qofku inuu xusuusto ceebihiisa oo uusan ku mashquulin ceebaha qodobka waa qodob daruuri ah haddii aan doonayno inaan xanta iska ilaalinno waxaad samaynaysaa ceebahaaga tirso ceebahaaga dib u fiiri ceebahaaga dib u fiiri meeqa ceebood baad leedahay meeqa ceebood baan leedahay meeqa ceebood baad leedahay ceebo badan baan leenahay dib u fiiri ceebahaaga kuguma fillo laakiin haddaad ceebaha bini aadamka ku mashquusho adigana ceebtaadu ay kaa qarsoonaatahay waxaad ogaataa inaad halaagsantay aakhira inta ka horeysa adduunyada maxaa yeele adiguna ceebahaagaa la raacraacaya 100 ceebood baad leedahay waxaa laga yaabaa inaad tahay qofka dadka ugu ceebaha badan haddaad moodayso inuu ilaahay kugu qarinayana ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku fadeexaynaya waana axaadiistii marka aanu soo maraynay maxaa kugu caawinaya waxaa kugu caawinaya mujaalasatu saalixiin dadka wanaagsan inaad la fadhiisato oo aad iska ilaaliso ka fogaato bataaliinta dadka ciyaal suuqiinta ah dadka aan ilaahay ku dhaweynayn dadka aan salaada ku xusuusinayn dadka xumaanta kugu hanuuninaya dadka mukhadiraadka ku baraya dhalinyaro haddaad doonaysaan inaad arrintaa ka fogaataan dadka wanaagsan ee saalixiinta ah mathalu ljaliisi الصaalixi wa jaliisi الsuu ka xaamil اlmiski wa naafikhi اlkiir saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun waxay la tusaale yihiin nin dukaan barfuuna gada iyo nin kabaha tola oo maxaa la yidhahdaa iikan buufufka siiya waana shaqo fiican ogaada shaqada ma aha wax la dhaleecaynaya shaqada ma aha laakiin waa shaqadu waxay soo saarayso barfuun haddaad gasho dukaan barfuuna 3 mid wey qofka inaad istaqaanaan oo hadiye ku siiyo way dhici kartaa inaad ka iibsatana way dhici kartaa intaad isku tijaabiso inaad adoo carfoon ka soo baxdana oo 3 bay mid noqotaa laakiin buufufta daad fadhiisato ama dharkaaba kaa guban oo waxaan ka soo dulduulaya dharkaa gubi ama daaf iyo waxaad qabtaa sambooro hindhisadaad ku waalani labadooda waxa loo isticmaalayna fiirsada waa biictibaari maa yuulu ilayhima labada qof meesha ku dambayn doonaan kani dab baa la sheegay qurmuuna waa la sheegay jahannamu khatar u yahay wey kana idgoon iyo caraf baa la sheegay janno ayuu abaalkiisa u yahay wey marka saaxiibku ama waa janna ama waa naar أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين waxaan ku soo gabagabaynayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala haddii la xanto maxaa la samayn oo maxaa kafaaro waa daawadii التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون الندم
inaad farta dhexda aad ka qaniinto saddex an yaqlac can اdembi dembigii inaad farta aad ka qaado alcasmu calى an laa yacuuda ilayha inuusan dib oogu noqonin iyo qofkii uu xantay inuu xalaal weydiisto icafi xoolo hadday ahay inuu u celiyo xan hadday iyo cirda intu u tahay inuu dha walaalow waxaasaan kaa sheegay icafi inuu yidhaahdo waa qofku intuu noolyahy hadduu dhinto soo ma aha culummadu aqwaal bay ka leeyihiin meeshuu ku caayey ama uu ku aflagaadeeyey buu intuu ninkii u tawcule ma xustaa hadda kahor inaan hebel wax kaaga sheega ha beenaalaan ahaa intaasaan ceeb ugu filan nin weyn oo dhahaya been baan sheegayey waxaan kuu sheegayaa hebel wuu dhintaye waxaan ka sheegay been bay ahayd anaa beenaalo ah oon markhaatigayga la aqbalayni u sheeg dadka